markii ay yeeshu soo dhex gashay xaruntan lagu xanaaneeyo gabdhaha uurka u qaada dadka kale waxay dareentay wax qalaad sababta oo ah weli ma aysan arag gabadh halkan si rasmi ah hooyo u noqotay xaqiiqdii yeeshu walaasheed ayaa la ildaran xanuun halis si ay u badbaadisana waxay u baahan tahay lacag aad u badan oo aysan awoodin sidaas darteed yeeshu waxay go'aansatay inay ka shaqayso ama inay ilmo u qaado dadka taajiriinta ah si ay u daboosho baahida dhaqaale ee haysata subaxdii waxay tagtay isbitaalka halkaas oo dhakhtarku uu sheegay inay uur leedahay 3 bilood islamarkaana laga doonayo inay hadda kadib u guurto xarunta gaarka ah ee haweenka lagu hayo aan ku xasuusiyo inaad muuqaalka like saarto ciwaankana subscribe dhahdo aan ku laabano filimka maalintii xigtay nin watay boorso lacag ka buuxdo ayaa yimid gurigeeda markii ay yeeshu aragtay lacagtaas oo ahayd mida ay u baahnayd shakilaan ayay ninkii u raacday balse markii ay gaariga fuushay waxaa sanka laga geliyey sunta dadka suuxisa markii ay soo toostayna waxay isku aragtay dhismo aad u qurux badan oo ah xarunta weyn halkaas waxaa ku sugnaa gabdho badan oo dhammaantood loo keenay inay ilmo u qaadaan dadka maalqabeenka ah iyagoo rajaynaya lacag laakiin xaqiiqdu waxay tahay goobtan maahan meel dhalmo ee waa goob qarsoodi ah oo gabdhaha lagu haysto si looga faa'iidaysto jirkooda kadibna la dilo si aad u ogaato waxaa ku dhici doona yeeshu iyo siday uga badbaado halistan fadlan subscribe dheh si aad ula socotid qaybta xigta daawada su'aal aan ku weydiiyo kee faa'iido badan inaad dhasho 10 wiil ama 10 gabdhood haddii aad halkan nala soo gaadhay waad ku mahadsan tahay daawashadaada wacan iyo dhegaysigaaga fadlan walaysa amran subscribe iyo like nagu caawi mahadsanid